cashirkan waxaan ku baran doonaa sida loo kala jaro xisaabta waana qaybtii koowaad ee cashirkeena kala jarista xisaabta markuu ugu horeysa waxaan subinaynaa tusaalahan 16 waxaad ka jartaa 2 16 waxaad ka jartaa 2 markuu ugu horeysa waxa la subiyaa lambarka wax laga jarayo ayaa kor lagu qortaa lambarka wax laga jarayo ayaa kor lagu qortaa hadda 16 baan waxaan ka jaraynaa 2 marka 16 baa kor ku qoranaynaa hoosna waxaan ku qoranaynaa 2 ayaan ku qoranaynaa hoos marka saas ugu qoratid baa waxa la subiyaa dhanka midig ayaa laga bilaabaa kala jarista xisaabta dhanka midig marka labada lambar oo dhanka midig ayaa la kala jaraa 6 waxaad ka jartaa 2 6 laga jaray 2 waa 4 halkana waxba laga ma jarayo marka halkan eber wax uma yaalaan marka halkii soo qaadanayna maadaama waxba laga jarayn hoos ba ku soo dhiganayna marka jawaabtu waxay noqotay 14 waana taa hoos nugu qoran marka 16 hadii laga jaro 2 waxaad helaysaa 14 tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa tusaale kale tusaalahan baan subinaynaa 25 waxaad ka jartaa 21 25 ka jar 21 markuu ugu horeysa lambarka wax laga jarayo ayaa kor lagu qortaa lambarka wax laga jarayo hadda waa 25 marka kor baan ku qoranaynaa kan wax jarayana oo ah 21 hoos baan ku qoranaynaa 21 marka saas u qoratid baad waxaad subinaysaa calaamadii ka jaraheed baa halka ku qoranaysaa waa kala jaraysaa marka waxaad ka bilaabaysaa dhanka midig ayaa ka bilaabaysaa lambarka kore dhanka midig baa waxa ka jaraysaa kan ka hooseeya hadda 5 waxaad ka jartaa 1 5 laga jaray 1 waa 4 2 waxaad ka jartaa 2 2 laga jaray 2 waa eber marka jawaabteenu wuxuu noqday 24 25 laga jaray 21 waa waxa ku soo haraya 4 ayaa ku soo haraya 4 eberka marka ma la dhigto halkan haduu eberka ka xiga lambarada dhanka midig haduu eber dhanka bidix haduu uu ka xiga eberka lambarada lama dhigto hadda eberkan 4 wuxuu ka xigaa dhanka bidix marka ma dhiganayno waan tirtiraynaa marka hadda jawaabteeni 25 laga jaray 21 waxay noqotay 4 tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 56 waxaad ka jartaa 24 56 ka jar 24 markuu ugu horeysa lambarka wax laga jarayo ayaa kor ku qoranaynaa lambarkaasna waa 56 waa 56 baa waxa laga jarayaa 24 marka lambarka wax laga jarayaa kor lagu qortaa kan wax jarayana hoos baa lagu qortaa marka 24 waa midka wax jaraya wuxuu wax ka jarayaa 56 24 markuu saas yahay saas baa la dhahaa calaamadda ka jartayd baa halka lagu qortaa markaas baa waxa la kala jaraa dhanka waxa laga bilaabaa bidix midig ayaan ka wadaa midig marka 6 waxaad ka jartaa 4 6 laga jaray 4 waa 2 5 waxaad ka jartaa 2 5 laga jaray 2 waa 3 marka jawaabteenu waxay noqotay 32 56 hadii laga jaro 24 waxaad helaysaa 32 waana taa hoos nugu qoran tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda 867 baan waxaan ka jaraynaa 342 markuu ugu horeysa lambarka wax laga jarayo ayaa kor ku qoranaysa lambarkaas waa 867 baad kor ku qoratay lambarka wax jaraya baa hoos ku qoranaysa oo ah 342 hoos baa ku qoranaysa markaas soo qortid calaamad ka jarayd baa halka ku qoranaysa markaas waa kala jaraysaa waxaad ka bilaabaysaa dhanka midig ayaad ka bilaabaysaa marka
7 waxaad ka jartaa 2 7 laga jaray 2 waa 5 waa 5 6 waxaad ka jartaa 6 waxaad ka jartaa 4 6 laga jaray 4 waa 2 8 waxaad ka jartaa 3 8 laga jaray 3 waa 5 marka jawaabtaadi wuxuu noqday 525 ayuu noqday marka 525 ayuu noqday jawaabtii tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 97465 baan waxaan ka jaraynaa 73442 ayaan ka jaraynaa marka ugu horeysa lambarka wax laga jarayo ayaa kor ku qoranaynaa oo ah 97465 kan wax jaraya oo ah 73442 baa hoos ku qoranayna marka saas ugu qano baan xariqintii dheereed subsanaynaa calaamad ka jarayd baa halka ku qoranaynaa markaas baan kala jaraynaa lambarada koray ku hoose waxaan ka bilaabaynaa dhanka midig ayaan ka bilaabaynaa 5 waxaad ka jartaa 2 5 laga jaray 2 waxaad helaysaa 3 6 waxaad ka jartaa 4 6 laga jaray 4 waxaad helaysaa 2 4 waxaad ka jartaa 4 4 laga jaray 4 waa eber 7 waxaad ka jartaa 3 7 laga jaray 3 waa 4 9 waxaad ka jartaa 7 9 laga jaray 7 waa imisa waa 2 marka jawaabtaadi wuxuu noqday 24023 ayuu noqday jawaabtii halkaasna ku sii qoran karnaa 24023 tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 9 baan waxaan ka jaraynaa 75 9 waxaad ka jartaa 75 marka ugu horeysa lambarka wax laga jarayo ayaad kor ku qoranaysaa kaasoo ah 9 way hoosna waxaad ku qoranaysaa kan wax jaraya oo ah 75 marka saas u qoratid calaamad ka jarayd baa halka ku qoranaysaa marka dhanka midig ayaa ka bilaabaysaa eber hadda bal u fiirso eber kama jari karna 5 marka maadaamaanan ka jari karin maadaamaanan eber ka jari karin 5 waxaan subinaynaa lambarka ku xiga eber baan waxaan kasoo daysanaynaa hal si aan eberkan aga dhigno 10 markaas 10 aan aga jarno 5 marka lambarkan eber wuxuu ka yaryahay lambar 5 marka lambar ka yar lambar ka weyn kama jari karna marka eber kama jari karna 5 marka waxaan subinaynaa 9 baan halka soo daysanaynaa 9 baan halka soo daysanaynaa marka 9 marka halkan ku soo daysano halkan waxa ku qoranaynaa eberkii halkii markaan ku darno 10 ayuu noqonayaa halkaasna waa cross gareynaynaa ama 9kiina marka halka soo daysanay waxay noqotay 8 ayay noqotay aydiina saas ayaa u cross gareynaysaa marka hadda 10 waxaad ka jartaa 5 10 laga jaray 5 waa 5 8 waxaad ka jartaa 7 8 laga jaray 7 waa 1 marka hadda jawaabtii waxay noqotay 9 laga jaray 75 jawaabteedu waxay noqotay 15 waana taa hoos noogu qoran tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 151 waxaad ka jartaa 35 151 waxaad ka jartaa 35 marka ugu horeysa lambarka wax laga jarayo
ayaad kor ku qoranaysaa kaasoo ah 151 waxaad ka jaraysaa kan hoosena waa maxay 35 markaas saas u qoratid markaas sidaas u qoratid baad waxaad subinaysaa calaamadii dheerayda hoose baa qoranaysaa ka jartay baa halka ku qoranaysaa marka hadda dhanka midig ayaa ka bilaabaysaa hal ka jar 5 hadda fiirbal lambarka kore iyo lambarka hoose ayaa weyn marka halka ma jar karna 5 marka si aan lambarka kore mid weyn aga dhigna si aan aga jarna hadhowtii oo aga weynaada kan hoose waxaan subinaynaa lambar hal lambarka ku xiga waxaan ka soo deensanaynaa hal baan ka soo deensanaynaa lambar 5tan ayaan waxaan ka soo deensanaynaa hal si aan halka aga dhigno 11 marka hata 5 ka soo deensa halkii wuxuu isku bedelay 11 ay isku bedelay marka halka soo deensanay 5 halkii wuxuu noqday 11 5tiina hal baa laga soo deensaday waxay noqotay 4 ayay noqotay marka hadda 11 waxaad ka jartaa 5 11 laga jaray 5 waa 6 hadda 4 waxaad ka jartaa 3 4 laga jaray 3 waa 1 halkaana wax laga jaro ma lahan hoos marka asageen waa soo qaadanay meesha hoos baa ku soo qoranaysa maadaameysan waxba laga jarayno eber tahay meesha marka hada jawaabtii waxay noqotay 116 ayay noqotay 116 ayay noqotay jawaabtii waxay noqotay 116 51 laga jaray 35 jawaabteeda waa 116 ayaa soo haray qaybtan waa qaybtii koowaad ee cashirkeennii ahaa kala jarista xisaabta qaybtan waa qaybtii koowaad qaybta labaad ee cashirkan kala jarista xisaabta waxaan ku baran doonaa sida loo kala jaro lambarada waaweyn oo kuwooda kore ay yar yihiin sida 7 3 eber waxaad ka jartaa 8 5 9 7 oo kale marka kuwaan oo kale sida loo kala jaro waxaan ku baran doonaa iyo noocyadan oo kale iyo noocyo ka duwan iyo waxaan ku baran doonaa oo qaababka loo soo deensado iyo waxaan ku baran doonaa qaybta labaad ee cashirkan marka qaybtan koowaad halkaas ay ku dhamaatay. Everything doesn't come complete with niggas like ours. That's why I see no need to compete with niggas like y'all. I just ask that when you see me, you speak up, nigga, that's all. Don't be ducking like you never wanted nothing. Everything doesn't come complete with niggas like ours. That's why I see no need to compete with niggas like y'all. I just ask that when you see me,